tobankii qof ee dunida joogaba mid baa ah Mareykankana waaba 5 milyan oo qof dadkan waxa loo yaqaanaa high conflict personality ama shakhsiyaad khilaafkoodu aad u sareeyo dadka caadiga ma aragtay khilaafka marka uu dhaco khilaafku way xaliyaan waxayna halkaas ku loobaan horena way socdaan laakiin qoladani waa qolo khilaafka boonboonisa wax yar boonbooniya waxayna aan loobin qofna dhibaato u geystaan dadka targetkooga ah ee ay dhibta u geystaan dadka noocan ahayna badana waxa weeye waa qof u dhow ama waa shaqaale ama waa saaxiib ama waa qof ay wax wada wadaagaan ama waa xaas kood waxa la yiraahdaa narcissistic waa nooc isla weyn waa nooc iscajabiya oo dadka u haysta inay ka sareeyaan waxay markaa hore muuqdaan dad charming ah oo ma aragtay furfuran oo shakhsiyad wanaagsan laakiin qof markuu dib u galo wuxuu ogaanayaa inuu yahay qof isla weyn qof jecel ma aragtay dadka inuu yaso qof jecel ma aragtay in la siiyo ixtiraam aan u qalmin nooca labaad waxa la yiraahdaa borderline borderline-ku waa dad marka hore u muuqda inay yihiin dad very friendly ama dad saaxiibtinimo iyo kalgacayl badan laakiin si aan laga filanayn oo dhakhso ah oo aan meeshaba oo isku bedeli kara markay isbedelaana waa dad cidda ma aragtay ay cidda marka ay eedeynayaan ma aragtay dib u geysta oo ka argoosigooda marka qaar u gaari karo ilaa xad ay dhibaato physical ama dhibaato qofka jireed ay u geystaan nooca saddexaad waxa la yiraahdaa antisocial waa nooc muuqda dad inay yihiin furfuran oo ma aragtay charming ah marka hore laakiin waa dad by nature jecel binaadamka inay dhibaato u geystaan waa dad dhibka ma aragtay dhibkooda xataa uu qofku ku kalifi karo in qof ka takhaluso nooca afraad waxa la yiraahdaa paranoid waa nooca bacda leh waa nooc aaminsan in qofkan uu dhib u geysanayo marka jecelna kaga horeeyaan nooca shanaad waxa la yiraahdaa histrionic waa nooc badana ka sheekeeya sheekooyin ma aragtay waali ah oo ma aragtay inta badan beero badan cidda ay la saaxiibkayna waa cid ma aragtay ay ku dareento culays iyo diiqo fara badan marka shantan shakhsiyadood qofka wuxuu leeyahay qoraagu dhibaato u geysan karaan waa ka taxadiraa